General Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore waxaan jecelahay inaan ugu horeyn ku weydiiyo safarka aad ku wehlisay madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan Burundi aad ku tagteen. Maxaa ugu muhiimsanaa oo looga hadlay marka laga hadlayo arrinta ammaanka iyo waliba walaaca hadda Burundi ay ka qabto in kun ka tirsan ciidamadeeda laga saarayo Soomaaliya? waa mahadsantahay Ridwaan. sidaad og tahay haddaan wax yar hor dib u noqdo taariikhda Burundi waa dalalka Afrikaanka ah ee dalalka ugu horeeya saaxiibka lahayn ee weliba saaxiib military aan ahayn ee ciidamada badan oo ayagu ay ciidamadooda ka mid ah meesha lagu tababari jiray. sidaad og tahay waxay ku jireen dowladihii ugu horreeyey ee ballan qaaday inay usoo diraan ciidamo Soomaaliya. muddo dheer bay joogeen maxaa ku dhaha wax badan aad iyo aad sidaas darteed goobti aniga uu madaxweynuhu hogaaminaya anigu aan ka mid ahayn baan tagnay. waxyaalaha ugu waaweyn oo tagnana waxay madaxweynuhu inuu mahadceliyo dalka Burundi garab istaaga ayna garab istaageen maxaan ku rahdaa arrintaas maxaan ku rahdaa saaxiibtinimada si saacto ay noo garab istaageen ay weli noola garab taagayiin mahadnaqa sida ugu mahadcelino ugana tacasiireen ragga uga dhintay ujeedada ugu weyn oo madaxweynuhu tegey arrintaas ahayd. waa gartay laakiin arrinta kale ee ku saabsan in Burundi ay kala hadashay in ciidankeeda ay dalka sii joogaan oo ilaa iyo hadda xataa marka la eego midowda Afrika arrintaas ay dagaal xoogan ka wado arrimahaas ma jiraan? haddii aan sidaas oo kale waxa weeye waa la wada ogsoon yahay security councilka Amisom inay waqti loo qaftay waqtigaas ka bacdina ay ka baxayaan. marka arrimahaas xaalad la og yahay oo dee go-aan laga gaaray oo Amisom sanad walba hadda ka hor qaar baa baxay sanadkan qaar baa baxaya sanadka qaar baa baxaya bixitaankaas weeye. laakiin Burundi iyo Soomaaliya yani Burundi Soomaaliya way og tahay inay Soomaaliya rol ku lahayn arrintaas rol weyn aysan ku lahayn. marka waa jirta Amisom iyo ayagu inay wax isku khilaafsan yihiin nabarada iyo wax isku khilaafsan yihiin laakiin wax annaga hadda noqotay ma ahayn. waayahay laakiin meelaha hadda saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka Burundi maamulada qaarkood sida Hirshabelle oo kale arrimahan walaac ayay ka muujinayaan. marka dhinacaas marka laga eego ma la dhihi karaa Soomaaliya laftirkeeda hadda waxaa laga yaabaa in dhibaatooyin ay kala kulanto haddii saldhigyada qaar ay ka baxaan ciidamada Burundi ciidanka Soomaalidana weli aanu diyaarsanayn? ciidamada Burundi maamul goboleedka Hirshabelle jooga weliba shabeellada dhexa jooga ka baxayaan. hadday ka baxaana waxaan aaminsanahay in wax dhibaataa jira ciidankii haddana waa jooga waanu joogi doonaa. marka welwel weyn annaga nama hayo ase ciidan ahaan waan ognahay inaan ku filannahay waana joogaynaa meesha aan joogno. waaya marka ciidankan ma kuwa hal meel oo keliya laga kaxaynaya mise waa ciidamo inta badan saldhigyo kala duwan laga keenaya mise saldhigyada qaara albaabada loo laabi doonaa? wallahi taasi waxay ku xiran doontaa qaabka Burundi ay u rabto laakiin Hirshabelle baa laga qaadi doonaa maxaa ayaga Hirshabelle joogaan meel kale ma joogaan. marka siday u kala qaadi doonaan iyo meelaha ka kala doonaan inkastoo ay meelo badan joogaan ma aqaano ayay ku xiranta taas. waayahay laakiin qorshahan guud aad ka dhawaajisay dee Amisom in dalka ay ka baxdo ugu dambeyn oo xilli maaragtay kala guura lagu jiro ciidan Soomaaliyeed Soomaaliya weli waxaad moodaa dhinaciina inaydan diyaar ahayn. marka muxuu yahay qorshihiina haddii Amisom ay dalka ka baxdo ilaan weligeed ma sii joogi doontee? weligeed ma sii joogi doonto laakiin Amisom looguma jelgin hal mar inay ka baxdo. Amisom waxay u baxaysaa qayb sanadkan kunbaa ka baxaya. meel alla meeshii Amisom ka baxdana annaga waan u diyaar garoobaynaa waana aaminsannahay inaan ku filannahay maxaa yeelay ciidanka iyagu waa aad buu niyad ahaan buu diyaar ugu yahay inuu la wareego wax walba niyadda ka aabaa ciidanku waa u diyaar inuu la wareego waana la wareegi karnaa. isla markaasna yani hal mar ma wada baxaysa Amisom waxay u baxaysaa qaab sanad walba qayb baa baxaya ilaa ugu dambeynta waxaa lagu go-aanka security councilka waxa weeye 2020 baxaan Amisom dhammaanba ay ka baxdo. haddii ciidan Soomaaliyeed weli aanu dhisnayn agab iyo qalab idinku filan aydan haysan hataa haddii ay tartiib Amisom u baxdo runtii waa dhibaato badan waa iska jiraa siiba marka laga fiiriyo dhinaca cunaqabataynta oo nasaaran laakiin ciidanka Soomaaliyeed waa u diyaar inuu la wareego xilkaas
maxaa kale dardargeli weyn iyo diyaargarow badanna wuu ku jiraa aad iyo aadaan abaal xoogga ugu jira sida ula wareeg lahayn wax kastoo aan tabanayno aan ka jeclaanahay intaas inay ka fiican tahay haddana horey waa loo sheego maamaayaa laga sameeyey waxaa ciidankaad jeclaan lahayd inaad ku dagaal gasho ciidankaad jeclaan lahayd laguma dagaalgalee kaad haystaa lagu dagaalgalaa ciidanka soomaaliyeed waa ciidan dalkiisa jooga aqoon ula dalka si fiican u yaqaano dhulka diyaarna u ah morally iyo materially diyaarna u ah dalka inuu difaaco kana saaro nimankaas arrintaas waa xaqiiqa waayahay arrin kale oo isla ciidanka ku saabsan haddii aan wax kaa weydiiyo waxaa la leeyahay haddii aanay aad iyo aad isugu soo dhowaan way adkaan doontaa in ciidan qaran oo soomaaliyeed la helo arrintaas ma qabta adiga ridwaan horta sideedaba xaqiiqada weeye ciidan siyaasaddaa dhista laakiin waxaan kuu sheegayaa anugu intaan xogaal u ahay soomaalida kuwa dalka jooga ama dowlad goboleed ha noqdeen ama dowladda federaalka ha noqdeen ama soomaalida dibadda joogta adigu aad ka mid tahay hal shay bay heshiis ku yihiin waxay heshiis ku yihiin ciidanka xoog dalka dib loo dhiso dibna loo soo celiyo mar haddii qadiyadaas heshiis lagu yahay waxaan aaminsanahay ciidanka soomaaliyeed inuu aad iyo aad si degdega lagu dhisin doono maxaa yeele layskuma khilaafsanaa ciidanka dhismihiisii dib soo celintiisa arnabi qolo khilaafsan ma jirto qol walba raalli ka tahay waayahay hadda aan arrinta ku saabsan in midowda afrika iyo ciidamada amisom ay qorsheynayaan guluf ay kula dagaalamaan al-shabaab oo ay sheegeen miyay kula tahay ciidanka iyagu qorshahaasi asaga hormoodka ah diyaarna wuu u yahay abaabulkeedana waa joint operation waa isku wada jirnaa waa waxa wada wadno annagana hormood ka nahay dagaalkaana sidaad u og tahay markhaatiid bay leedahay 10 sano dhimashada iyo dhaawaca ka yimaada meeshan mar kasta annaga ugu badnayn sababta waxa weye annaga way dalkii waxa la xoreerayaa annagaa meel kasta ugu horreyna waa arrin la og yahay oo adduunka dhan waalax ku ah in laga warqabo sida ay ciidankeegu markas diyaar ugu yahay sidaas darteed buu ugu bataa dhaawaca iyo dhimashada haddana sidiisiba diyaar ugu yahay wax iska bedelani malaha waxaanu diyaar u nahay inaan la wareegno dalka iyaga nabadgelyadiisa waana shakino kuma jiro askariga soomaaliyeed waa nin u diyaara naftiisa u huro xaalad kasta iyo situation kasta u marayo mar kasta waa u diyaar weligood lagama yaabo inay hakad ama shaki geliyaan difaaca dalkooda hulaysan maxay yihiin caqabadaha ciidanka soomaaliyeed aysan ilaa iyo hadda u awoodin ama xataa amisom marka lagu daro maxaa al-shabaab looga adkaan la'yahay al-shabaab waa laga adkaaday oo markhaati waxa ka ay laga adkaaday waad xasuusataa dalka waad joogtay meeshay joogeen iyo maanta meesha ay joogaan awooddaas al-shabaab maanta haysato waxa weeye in baabuur qarac lagu soo sameeyo oo meel lagu qarayo dad shacab oo meel jooga lagu laayo awoodda heerkaas markay marayso waxaad garanaysaa itaalku meeshuu leegyahay maxaa yeelay hadday itaal ka badanaysa nin uma ay naxariisteen laakiin waxaad dareemi kartaa awoodooda intay laag tahay waxay ku soo hareen keliya oo laakiin dhul aad u weyn ayay weli gacanta ku hayaan soo maaha ma jiro dhul weyn ay gacanta ku hayaan absolutely ma jiro dhul ay gacanta ku hayaan ma jiro waa duumaalaysi waa meeras waxaasay ku jiraan awoodda dhan waxay kusoo ururta kadib dadka inuusan nabadeedi aad iyo aad baa umahadsan tahay oo aan ku wareysanayay taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe inta mar kale aynu